biibta islaamka qaata war aayad ilaahayo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo bas raacaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqaa ka adeeganaysa noqda walaalayaal in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaala saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya saad diinta alla u nacdaan bay jannadu idin nacaysaa saad cadaabka iyo saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaashaha u jeclaataan yaa ibliis iyo shaydaan idin jeclaanayaa haddii kale rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin xaqana dadkay ka iilayaan war ka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin afka gudud marsatay dirac khafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata laamiga intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal soo ma arkin 7 jeer inay gadaal idin soo eegayaan soo ma arkin inay idin fiirinayaan waa maa'ilaad way iilan yihiin dadkiina xaqay ka iilayaan war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan war sabab u noqda raggu inay hanuunaan mar allaala marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko yay malaa'igtu ku faraxdaa xasanaad loo qoraa rabbi jeclaadaa shaydaanku ka cararaa laakiin kuweenna maanta shaydaan baa saaxiib la'a war saaxiibnimada shaydaanka gooye xiriirka ilaahay hagaajiya sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale oo iilan wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sala allahu calayh wasalam naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye xataa udugeeda heli mayso naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhaxulla looga dhigayaa cadaabka mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa dacam looga dhigayaa dariic iyo zaquuma iyo geedaha alla tilmaamay subxaana wa tacaala waxa la cabsiinayo oy adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay ee ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkiisii inkiray oo diiday waxa ka yimaadee dheecaan ah kaasaa sharaab looga dhigayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarka in badan ayuu la hadlay waxyaabaha uu faray ee uu amray waxaa ka mid ah in xaqa iyo wanaagga lagu dadaalo in diinta ilaahay dhabnimo loo aamino in rabbi subxaana wa tacaala laga cabsado khayrka iyo wanaagga in aad iyo aad loogu socdo dumarku in allaala intay xijaaban yihiin bay khayr iyo wanaag u dhow yihiin ilaahay intaa markuu sheegay ayuu yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo moodeelada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollonkeedaa bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkiibaa ku dheggan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay taacada alle ku dadaal waad u jeedaa nebi muxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad u jeedaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii muxamedun rasuulullah aadanka tegaynin mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa
ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa inta war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gowmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wahwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad mooddaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بنانك ما soo baxaya waaya gabar baa loo dhalay wax idinkaga dandarnaa ma jiray wax idinkaga fool xumaa ma jiray walaalayaal aabbihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo aabbihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin hadduusan dadka akhyaarta ag imaanaynin yatawaaraa waa dhuumanaya waa isqarinaya xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay ayumsikhu calaa huun am yadushu fi turaab inuu ciidda isaga duugo waxaan xunay dhashay inuu carada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeenuu wadaa garkay ciidda ka tirtiraysaa ay leedahay aabbe asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah dhaxaasaa alla idinka badbaadiyo subxaana wa tacaala surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo waxaad u ololeynaysaan inaad baxdaan xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal xayaatadan xayaataa ka dambaysa aabbe way tirtiraysaa caradii godkuu qodaayey yaa gerka uga taala aabbe ayadoo lahu qabanaya markaasuu ku tuurayaa markaasuu godkii ku ridayaa sayxadeedii qayladeedii oo hinteeda la maqlaa laa ilaaha ila allah xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala waida almaw'uudatu su'ilat tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay aaway kii duugay warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tasho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii kida waa xijaabkii kida wax la dhaha ma jire xijaab waa xijaabka alla soo dejiye subxaana wa tacaala xijaab waa midka ku astura xijaab waa midka aan korkaaga laga arkin xijaab waa midkan kugu dheganayn xijaab waa midaan khafiif ahayn xijaab waa midaan dharka gaalada u ekayn xijaab waa midaan catar iyo barfuun lahayn xijaab waa midda ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado inay gabar muslimad ah tahay inay gabar xaraa'ira oo xor ah tahay inay gabar ilaahay jecel tahay jalbaabkaa lagu aqoonsadaa jalbaabkaa lagu yaqaanaa jalbaabkaa lagu aqoonsadaa oo lagu fahmaa dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan maxaa labadaa loo daba dhigay maxaa aayadda labadaa loogu qatimay waa qatin aad iyo aad u qiimo badan wa kaana allahu ghafuuraa alla waa dembi dhaaf badne naag allah la naagtaan xijaabanin oo aan jirkeeda qarinin oo surwaal ama dirac khafiifa ama marag yara garabka saaratee bannaanka ku baxda hadday tawba keento saacaddan aan joogno ay dawaar laha aado dhar xoog badan oo culus oo shuruudaha xijaabka wata ay labisato ilaahay waa dembi dhaaf badne subxaana wa tacaala la dhihi maayo 20 sano iyo 30 sana jilbaab la'aan suuqa joogtay kaa aqbali maayo xaashaa lillaah ilaahay ma ahan subxaana wa tacaala dembiguu noo cafin waana noo dhaafaya wa kaana allahu